12 saac ee la soo dhaafay isweydiimo ayaa ka dhashay waxa looga hadli doona fadhiga aan caadiga ahayn ee ay yeelan doonaan mudanayaasha golaha shacabka ee waqtigood la idlaaday maalinta sabtida ee nagu soo wajahan kaasoo xalay cilaamiyay gudoomiyaha baarlamaanka sida ku xusan qoraalka mursal waxay tahay in madaxweyne farmaajo uu la hadlo baarlamaanka sidaasoo kale markii ay hadleen madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Hirshabeelle Cali Goodlaawe iyo qoorqoor Galmudug diideenna muddo kordhintii golaha shacabka haddana ra'iisul wasaare Rooble soo dhaweeyay go'aankooda dad badan ayaa tabiyay wararka sheegaya inuu jiro khilaaf cusub oo ka dhex jira saaxiibadii isku garabka ahaa ay isku koox noqdeen laba dowlad goboleed iyo Rooble taas waxa loo arkay tallaabo si weyn loo faafiyay mucaaradka ayaa shirajirayd ku soo dhaweeyay tallaabadaas laakiin xogo hoose waxay cadeynayeen inuu jiro isku xiran u dhaxeeyay dhinacyada fiila Soomaaliya ugu yaraan uu ahaa mid ay aragtida guud isla qabeen maadaama bilowgii kordhinta Rooble laga dhigay kaar bannaan oo hadhow dib loo adeegsan karo ila ku dhowdhow gudoonka baarlamaanka iyo madaxtooyadu waxa ay xaqiijiyeen in fadhigu ku kooban yahay oo kaliya hadal jeedinta farmaajo iyana ku salaysan in dib loogu laaban doono wada hadalkii dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka mursal sheekh cabdiraxmaan oo ay la kulmeen mudanayaal baarlamaan oo gaaraya 30 xildhibaan kana mid ah saxayaashii heshiiskii muddo kordhinta ee golaha ayuu u sheegay kaliya in la dhageysan doono hadalka farmaajo mucaaradka ayaa ka walwalsan fadhiga baarlamaanka waxay sii sheegeen in aaminaan laga doqon doonin in golahu qaato tallaabo kale oo mar kale abuuri doonta deganaansho la'aan siyaasadeed kuna wajahan wax ka bedel lagu sameeyo golaha wasiirada ila ka tirsan mucaaradka ayaa sheegaya inay jiraan macluumaad ku wajahan inuu jiro mooshin ay abaabulayaan mudanayaal golaha ka tirsan ayna ku doonayaan in xasaanada lagala laabto xukuumadda uu hogaaminayo ra'iisul wasaare Rooble taas oo ah dhacdo weyn oo siyaasadeed 4 sano ee la soo dhaafay siyaasadda dowladda federaalka waxaa looga bartay dhacdooyin kalis ah oo cayn wareeg siyaasadeed kalifa taas oo ay mucaaradku shaki ka qabaan inay noqon karaan kuwa waqtigan ay maqraati ka noqdaan mar kale aragtideeda xiisadan taagan ayaa gaartay inay maanta is arag gaar ah yeeshaan madaxweyne farmaajo iyo ra'iisul wasaare Rooble oo ay ka wada hadlaan siyaasadda sida ay xaqiijinayaan ila ku dhowdhow dhinacyada haddana ma muuqato saameyn xoogan oo dhacdadaas la xiriirta mudanayaal ka tirsan xubnaha lagu tuhumay inay ka shaqeynayaan dhacdada la hadalhayo way diidan inay run tahay waxay xaqiijiyeen inaysan maqnin cid hadal haysa taas beddelkeeda ma aysan qirsan inay ka shaqeynayaan in wada hadalka teendada afisyooni waqti loo qabta dhammaadkiisa oo uusan noqon mid lagu sii daayo dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada waa caqabad kale iyo isbaaro siyaasadeed sida la rumaysan yahay inkastoo aan lahaynin cadeymo buuxa oo labada dhinacba ah ayna beeniyeen sifaha ku saabsan jiritaanka tallaabo ka dhana xukuumadda oo ka soo wajahan golaha shacabka haddana saadaaliyaasha siyaasadda ayaa leh lama qariibsan karo isbeddel iyo dhacdo taasoo waqtigan ku soo beeganta hadda dhinacyada siyaasaddu waxa ay isku raacsan yihiin aragti ahaan inuusan jirin nooc kale doorasho oo aan ahayn mid dadban kuna qotomin 17 Sebteembar kaas uu u baahan yahay wada hadal siyaasadeed oo looga heshiinayo arrimaha soo laabtay waxaana ka mid ah caqabada arrinta amniga doorashada inkastoo xukuumaddu sheegtay in iyadu la wareegtay lagana wareejiyay madaxweynaha haddii madaxweyne farmaajo qaado tallaabo noocaas ama ku fakaraba durba waxaa lagu sifeynayaa isqarxin siyaasadeed oo midhaha ka dhashay ay soo afjari doonaan mustaqbalkiisa siyaasadeed ayna markaasi caddahay dhabbaha muuqda horeyna u soo dhacay xilligii dowladda kumeel gaarka ahayd ee Baydhabo